xeebta Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soconaya olole nadaafadeed oo ay wadaan shacabka deegaankaasi. Warkaasi waxa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Mas'uud Cabdullaahi Aadan. ololaha nadaafadeed ee laga sameeyay xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo ayaa ah mid lagu soo saarayo bilicda xeebta Calanley oo ah meel ku wanaagsan dabaasha iyo dalxiiska. hase ahaatee aad oola ildaran nadaafad darro baahsan oo uu sababay qashin buux dhaafiyay xeebta Calanley ee magaalada Kismaayo. ugaas Leylon oo ka mid ah salaadiinta beesha Carab Soomaali ayaa hormuud ka ah howlahan lagu nadiifinayo xeebta Calanley. waxa sidoo kale goobta qashinka laga qaadayay ku sugnaa gudoomiyaha xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo. ugaas Leylon iyo qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay howlahan qashinka looga ururinayo xeebta Calanley howlaha nadaafadeed ee ka socda xeebta Calanley. alxamdulilaahi rabbil caalamiin ana oo ah beesha Carab Soomaali maanta waxaan garanay inaan si filimtari ugu shaqeyno xeebta ilmawaaye maadaama aan aragnay bilicda magaalada inay tahay oo haddana wasaqdeeda alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo aan isu xilqaano inaan wax ka qabano anagoo cidna aan taageero keliya aan isu xilqaano si dar alla insha allahu tacaala intii hor u jeedin waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano howlaha noocaan oo kale biidnillaahi alkariim beesha Carab Soomaali anagoo ah ugaaska beesha Carbeed ugaas Cali Jamaal Maxamed ugaas Leylon beesha ما يشاء شغل ما دنيا هو جامعنا سيفل كثير وكل شقينا هنا يعني إن شاء الله تعالى هلا يو ما ملك بو حنقول سنينا إن يعني تغير أي نوفي يعني إن شاء الله تعالى سيئة مع الرحيم ما أنتوا حكوا شقينا سنتر نظافة حبت نظافة يعني هاي ما أنت حكوا شقينا في المواعي إلا حبت سواء الساكن إنه حاجة إلا لو بقول كويس إنك شقيان أنا أقبل قاعدنا وحي الله وحي نصر بحان زيارة أونا. محمد وأنا وحنا كشقينا سنتر أنا كشقينا ساعة الصبح لماذا وحنا أباهنا إنه ولا تاجر قالت أنا كشقينا أنا بكوا عليه وحنا قيف سما أباهنا. عيبت أنا كشقينا إن نظافينه نظافة ده إن وحقبتكم بالشدة بلعد مجالده محاربنا إن صارنا. مسعود عبد الله آدن SBC مقالة كيسمايو.